mudanayaal iyo marwooyin waxaan maanta isugu nimid mowduuca Soomaaliya iyo isbedelka gobolka maxaa kala gudboon Soomaaliya marka isbedelka gobolka Soomaaliya maxaa la gudboon taladii iyo xalkii meel walba ka raadinay sidoo hadraawi lahaa markay danimeeday tiri hadraawi hortii quraanka waa aragteeno nabi ibraahim wuxuu deeyay ilaahay xagu jira xal buu raadinayay caqiidadeed dabadeedna su'aalu isweydiiyay idinka iga badaya shariicada islaamka iyo quraanka hawraartaas ma gabiga hadraawi wuxuu leeyahay markay danimeeday tiri maxaan tala meel ka deeyay markay danimaa ha tiri maxaan daran meel ka sii deeyay meel la deeyay markay danimaa ha tiri ka deeyay meel la deeyay marka arintii iyo xalkii Soomaalida ama Soomaaliya meel kasta waa ka daydaynay marka aan isweydiino Soomaaliya maxaa la gudboon Soomaaliya xagee ka socotaa Soomaaliya xagee u socotaa Soomaaliya maxay rabtaa Soomaaliya waxa ay u baahan tahay nabad iyo nolol laakiin anigu waxaan ku tusayaa Soomaaliya waxa ay u baahan tahay nabad iyo nolol waan ku tusayaa waa ku taabsiinaya Soomaaliya waxa ay u baahan tahay inay nabad ku noolaato Soomaaliya waxa ay u baahan tahay inay nabad ku wada noolaato Soomaaliya waxa ay u baahan tahay inay nabad kula noolaato jaarkeeda Soomaaliya waxa ay u baahan tahay inay nabad iyadu iskula noolaato wiilwaal baa laga sheegayay rag wax walba ku sameeyayo walaal wuxuu ku dhaamo waan waay Soomaaliya way dagaalantay way istishay jabhaday isu soo adeegsatay qabiil kasta Soomaaliyeed xarafka S Soomaali maxay patriotic front iyo Soomaali maxay movement uu la baxay Itoobiya hub ka soo qaatay dawladii dhaxaynu jabinay dabadeedna halka ay ina dhigtay waynu ognahay waan bay hoofnay dunidaynu kala dhaxnay maanta aynu kala wada joognaa Soomaaliyadii midowday yabyabkeedii baynu ku jirnaa Soomaaliyada aynu haysano ee ay tahay isbedelka gobolka sidee uga faa'iidayo maxay ka faa'iideysaa waa Soomaaliyada maanta jirta ee idinkuba u wada marxaatiga tihiin waxaan aaminsanahay idinkuna ka maraq kacdeen inay Soomaaliya meel position ku jirto istiraatiijiga buqcad istiraatiijiga inay ku taal waxa kale oo ka maraq kacdeen inay gateway-ga Afrika laga galay tahay waxa kale oo ognahay Soomaaliya iyo geesku inay ku yaalaan marin kamid ah shanta marin biyood ee caalamka ugu muhiimsan kanaalka Suez Hormuz Malaka iyo Bab al-Mandab oo aynu geeskan Afrika badda Casi ku yaalaan marka Soomaaliya waa meel muhiim ah maadaama ay muhiim tahay sidee baynu uga faa'iideysanaa isbedelkan gobolka sidee baynu uga heli karnaa wax inaga Soomaali ahaan inna anfaca inaga dani inooguma jirto kaarirka Itoobiya ay haysato iyo waxa ay yihiin waa inaynu ku mashquulnaa war Soomaaliya sidee u wada noolaan kartaa nabadna u wada heli kartaa iyaduna u kala nabad gali kartaa Itoobiyada hore ah sharkeeda aynu isaga moosi karnaa ra'iisul wasaare cusub baa yimid aragti cusub uu la yimid isdhexgalka gobolka ee xagga dhaqaalaha ayay tahay inaynu maanta ka hadalno taana wax badan baynu ka faa'iideynaa waxaynu ka faa'iideynaa nabad waxaynu ka faa'iideynaa nolol kol haddaan jabhado la isu soo hubeynahayn oo xasilooni siyaasadeed oo Kenya iyo Soomaaliya la mid ah aynu helayno waxaynu mar labaad ka faa'iideynaa in Soomaaliya iyo Itoobiya nabad ku wada noolaadaan waxaan ku kalsoonahay aadna ugu haweenahay in shirkani wax badan oo arrimaha ku saabsan uu falaqayn doono Soomaalidu waa ogtihiin ganacsi fircoon bay ku leeyihiin Kenya ku leeyihiin Itoobiya ku leeyihiin Djibouti wali Soomaaliya ka hadlaya Suudaan bay ku leeyihiin Uganda sidoo kale dunida kale daafaheeda aragteen aad bay ganacsiga iyo isdhexgalka iyo inay aragti ku soo kordhiyaan dadka ay la nool yihiin ay u horseedaan maxay haddaba iyagu isugu soo kordhin waayeen maxay haddaba iyagu horumarkaas u samaysan waayeen waxaan isleeyahay maanta wadadii saxda ahayd baan cagta saarnay ilaa 2000 wax badan waa soo qabsoomeen maantana waxaan u baahannahay inaan isla shaqeyno inaynu jaarkeenna la shaqeyno waxna kala faa'iideysano
iskaashiga iyo wada shaqaynta iyo midooga laga hadlaya ma aha mid siyaasadeed laakiin waa mid dhaqaale iyo walaalayaalow colaadi waxba inama tartee aynu ka faa'iidaysano dhaqaalaha iyo isdhexgalka iyo in aynu inagu isku tashanno dalkeenna aynu ku tashanno hadday ii suurtoodo waxaan doonayaa inaan ku soo gebagabeeyo hal qodob oo ugu dambayntii rajada ah maxaa ka soo bixi doona shirkan maxaa ay tahay in aynu kala tagna halkan markaad saddexdaa cisho maskaxda tuujisaan waxaynu nabad baynu u baahannahay haddaanay nabadi jirina nolol ma jirto soomaaliya waxay u baahan tahay nabad iyo nolol abwaan soomaaliyeed oo boqol sannadood ka hor noolaa baa nabadda meel kasta ka raadiyey wax kastoo qofkaas uu nabad kaga heli karana baadi goobay wuxuu yidhi rag sabaanka sabaan baan samaantuun badiyaa idfac biladii hiya axsan weeyaane moogtahay hadduu saakimi waayena sariir baan u dhigaayo iska seexo idha war maxaa ku shiday war aayar iska seexo iska naso war maxaad ii dhibi maxaad ii dili maad nasantidaa waxa ku hayaa hadday tahay inaad nasan weyday hadduu saakimi waayena aanihii hasha suubbaan 3 koor u lisaa ku siriiga idha war ninka magaajaa haysa war balcaane geelsi waa shaygii ugu weynaaye Soomaali bixin kara waaga hadduu saakimi waayena sumalkii rugta joogay iyo sogobkaan u qalaa war malaa ninka saruurad baa hayso hilib buu raadinaya nabad buu ku raasay uga nabad galay ma ogtahay hadduu saakimi waayo gabadh suurad wanaagsan baan surrada ugu dhisaa war ninka ma xididaanba oo tan noqotaan aad ka nabad gashide hadduu saakimi waayo raalli ahaada haweenka waa hadduu saakimi waayo seedow mood iyo salaantaan badiya salaamu calaykum war ma nabadbaa salaamu calaykum waxaan rabaa ninka iska busteeyo waa kan ku cadhaysana halkay dhib ka jira hadduu saakimi waayo xoolo gooni u soofiyo sadadan ku ladha war ninka malaa wuxuu doonayaa xoolo xerada uu ka buuxsadee u buuxi hadduu saakimi waayo salaadan la labaayo meydal sooyado madow iyo salligaan cuskadaayo sulub eebba ku joogtaan sarartaa ku dhuftaayo sambabkan ka baxshaayo markaasuu sallimaa waxaan doonaynaa nabadda inaan meel kasta ka raadinno markasta la inagu kalifo inaan istifaacno Soomaaliya nabad iyo nolol bay rabtaa waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in shirkan maskaxda tuujisaan aqoonyahan baa isugu timaadeen saddexdaa cishanow xalal iyo xuluul miro dhal ah oo Soomaali wax u tara geeska Afrika dhamaanteed Soomaaliyana wax weyn u tara in ay ka soo bixi doonaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh